soo dhawaada asxaabta maanta waxaan la wadaagaynaa dhowr wax haddii aad samayso saddexda kugu jeclaanayso ama ay ka hesho. hadda waxaan ku dhowr qodob oo haddii ay saddexda ay ka hesho ay ku jeclaanayso, haddaad tahay wiil ama ay gabadha tahay. runtii bilaadanku isku mid maaha, ama haddaad wiil tahay ama gabadh tahay, haddii saaxiibkaa uu saddex fiican ku beegmay ama saaxiibada saddex fiican ku beegantay, waxaa laga yaabaa adigu inaad saddex fiican aad ku beegmo. laakiin si wax walba hab iyo nidaam lagu maamulay leeyihiin, qof kastana si loola dhaqmo ayuu leeyahay oo dabeecadiisa lagu bedelo. haddii aan lagu bedelina laga ammaan helayo, markaas lagu dhaqmi karayo qofkaas shadii khayr baad ku wada soconaysaa. dhowrka hab aan la wadaagay waxa weeyaan, horta intaanan qodobadan aan gudagelin, haddii aad youtube-keena ku cusub tahay subscribe saar. kolley waxyaabo badan, mawduucyo badan ayaad ka faa'iidi doontaa. videogana like saar si dhiirigelin u noqoto, sidoo kale si share garee. waad mahadsan tahay. haddaba videoga barbilow ilaa bardhamaad daawo, insha allah waad ka faa'iidi doontaa. marka ugu horeysa waxaa laga yaabaa saddexda inays arag haddii inta sheekada socoto qofkaad calaf isku yeeltaan. laakiinse marka aa qofka isguursataan ama isla taga ama ay soo doonto, markaas qod dadkasi arkaysaan sodo ama sodo fiican ama xun ayaad arkaysaan. haddii aad isguursata qofka aad calaf isku yeeltaan oo hooyadii ay nooshahay ama aabihii nool yahay, maanta waxaan ka hadlaynaa marka soddexda loola dhaqmo lahaa. mawduucan weliba aada u xusii khusaya hablaha. waxaa lagaga baahanya marka ugu horeysa isguursataan ama inaan kuwa kula tago guriga kula tago oo guriga hooyadii ku geeyo. markaana ciyaaro way bilaabmi karaan oo soddexda markaas dabeecdeed arkaysaa. haddii inanka ay raalli ka ahayn, liwaalku isku mid waa caruurta awlaadda qaar baan la jeclayn baan wax lagu falibo, ama yacni laisleeyahay soo baxo xab barto oo macnaha ama shaqaysto. marka ugu horeysa aad soddexda isguursataan, inanay gabadhay adaa kula hadlaya ama hablo idinkan ila hadlaya, waxaa lagaga baahan yahay haddii ay ku caydo marka ugu horeysa waxaa lagaga baahan yahay inaad la caytamin, aan la jarin. marka soddexdu saddex ayay noqonaysaa: mid xumaantaas kaga dhalatay, mid wanaagsan, iyo mid iyadoo wanaagsan haddana afxumaas ka taqaana ayaa jirta. markaas hadduu waa saddexdaas, adduunku inta badan wax walba waa saddex. haddii tusalan ay tan xun ay kugu soo beeganto ama saddex horteedunta ahaatee ay ku caydo, ha la tirsanin. si edable aduskaga waxbaa la tirsanin. labo, dadnimada ha ka tegin. haddii matalan oo kale ay soddexdu wax kuu qabato, yacni wax ku tarto ama ay ku caawiso ama waxaad u baahantay markaa ku keento, ku mahadceli. markaas haddii mahadcelinta ay qaato, waa qof wanaagsan oo markaa yana dadnimo leh. laakiin saddex markaa ku tira waxaan sheeganahay dabeecadaha waa si step step aad ula baxaysaa. marka haddii markaa kugu tufto, haba mahadcelin wax dambe ay kuu qabato. dadka qaar baa iyagoo wanaagsan haddana hadallada qaar aan qaadan karin. marka qaar waxaa dhacaysa inay ku tijaabiso oo inankeedii ay kula xamato, ay ku yeedha kale kan waa nacasi, maxaad ku fasho wacaynkan oo sidaa dadnimo male. adiga laakiin habbaa ayaad maraysaa. waxaa isticmaalaysaa marka ay kula timaado, ay kula xamato, ama ninow gabadhii aad soo guursatay ama la socotay ay kula xamato, saantu waxaa laga baahan yahay inaad sida wanaagsan u hadasho. oo haddii tahay qofka waxma saqajaan, aad tirado waa qof fiicane, wacaynkan anaa ku doortay, anaa ku raba, oo qof fiican. adigu mar dhaba negatifkiisa xumaantiisa ka hadlay. waayo qofkan soddexdan ama ninow ama gabadhay ha us wada bixi. waxaa laga yaabaa qofkan soddexdan inay xunta ku tijaabinayso. waxaa lagaga baahan yahay marka horeysa aragtida iska daldalin, qof sheeka badan oo iska soo wada baxaa noqon. laba dabeecadda qofka su-aalku weydiiya, su-aasha yarakaada ha kugu soo celiyo. maxaad nooga jawaabaysaa? waxaa kaaga soo baxaysa meesha qof inuu yaro dabeecad xun yahay ama dabeecad yara wanaagsan yahay. haddii uu fira maxaa naga jawaabayaa dabeecaddiisa, qofka waxbaa fira jira. laakiin hadduu su-aasha ku weydiiyo aad ka aamusto,
oo ka boodo ama uu ka yara israado oo ka aamuso qofkaas waa la yara qaatay markaas haddii aad ogaato markaas su'aal weydii laakiin su'aal xagga xun waxba ka weydiin su'aal yar weydii si aad dabeecaddiisa ula baxdo haddii aad ogaato in ay sodohdii ay qof wanaagsan tahay marka horeba aad gabadha qofka guursanaysa waa inaad usaan tagtaa marka labarwan loo baahay aad weydiista dadka ka yaqaana weliba dadka haddii ay kuu suurtogayso dadka yaro waaweyn ganacsa wax garadka inaad weydiiso dhalinyarada haddii doonoo iska weerari karaan waayo inan bay u diidi kartaa sidaasay ku waxayn karaan ogtahay marka ugu horeysa aad qofka aad kulantaan weji wanaagsan iyo dabeecad wanaagsan ku qaabil kadib baad ayaad ku soo baxaya qofku wuxuu yahay markii aad ammaanto qofka waxyaabaha lagu kala garto in wuxuu yahay inuu wanaagsan yahay ayay ka mid tahay ammaantu haddii aad aragto qofkan ammaantaada qaadanayo ku farxayo niyad ahaan macnaha qofku uu ku farxayo ammaantaas qofkaas uu wanaagsan yahay waa dadka ammaanta ku leh dadka qaarna waxay ku leeyihiin xumaanta iyo aflagadada iyo ku adkeynta ay ku leeyihiin marka haddii aad aragto sodohdii inay ammaanta qaato oo ay ka heshay ammaanta waxaad yeelaysaa wax kastoo ay kuu qabato ammaanta marka ammaantii iyada laba qaybood ayay noqonaysaa qofka wuxuu jecel keligii in la ammaano aan dadka dhexdiisa lagu ammaano marka iyada labada jeer baad ammaanaysaa si dabeecaddeeda la soo baxdo marka waa isla garanay marka aad keligeeda aad ammaanto ammaantii way ka heshay kasoo qaad inay ka heshay waxaa hadhay dadka dhexdeeda inaad ku ammaanto haddii dadka dhexdiisa ay ku farxdo ay sii markaas ay tiraahdo kugu faantay tiraahdo inantaan sodoga ah ama inankaan sodoga u ahay ay ammaantii qaato waad ku wadaysa haddii kale kee dadka dhexdiisa ay yaro budbudo ama ay yaro quruf keento ama ay diido ammaantii waad ka deenaysaa keligeed baad u ammaanaysaa saasaad ammaanta ugu wadaysaa waad ogaatay qofkii already markaad tilmaamaha raacday qofkii ilbiya inuu wanaagsan labadii wada ogaatay waxaad samaynaysaa marka qof wanaagsan hadduu yahay waxtar reerku leeyahay macnaha ama inaan haddaad tahay ku tarayo ama haddaad gabarh tahay ku taraya waxaa lagaaga baahan yahay inaad tala weydiiso warta qofkii kusoo jeedo attentionkiisa kusoo jeedo waxtarkiina wanaaggiina diyaar yahay waad gartay waxaa lagaga baahan yahay inaad nolosha waxyaaba qaar ugu imaanaya faamiliga la xidhiidha adiga ninkaaga ama adiga gabadhaada la xidhiidha waa inaad tala ka weydiisaa waayo waayeel korkiisa wada indhaa la yiri waxa laga yaabaa inayba dhaqaaliyan ama maskaxiyan wax lagu kaabi karto oo markaad isku hubto ayaad tala weydiinaysa inta xigta waxaa lagaga baahan yahay inaad marka qaar u keento hadiyad ood kaga farxiso waxyaaba dadka hadiyadda iyo waxsiinta waxyaaba dadka lagu kasbado ayay ka mid haddii uu hadiyaddaas uu kaa guddoomo oo ku qanco ugu ammaano hadiyadda marwaloodu keenaysa waxay awooddaada haddii laakiin uu kaa diido oo marka aad in badan aad marka qaar ood keentay hadiyad uu diiday waad ka deenaysaa waxaa lagaga baahan yahay inaad mar kasta aad caawiso tusaale gabadh baa tahay sodohdii waad fiican tahay inay fiican tahay waad aragtay qof kuusii jaban ay tahay marka qaar ood caawinaysaa dharka ayaad u dhaqaysaa marka qaar waxa aad samaynaysaa marka ay tiraado qof sharaab ama biyaan u baahanay waad u keenaysaa waxyaaba qaar aad oo wado markaas eriyada ka dhow laakiin ay u kixi kareen waad ka caawinaysaa waxaa lagaga baahan yahay inaad qof isku kalsoon aada muujisin qof isku kalsoon marka qaar waxaa laga baahan yahay iyadoo way ku tijaabinaysaa yacni maxaa saa u samaysay waxa aad samayso waan sameeyey waad oranaysaa aniga go-aan ku gaaray laakiin waxyaabaha qaar ee reerkiina ku burburayo iyadana aad ku kala fogaanaysaan waa iska ilaalinaysaa marka waxaa laga baahan yahay markaad dabeecadahaas oo dhan ogaato qof wanaagsan oo kasoo hadalna markuu yahay inaad u dhaqso haddii qof xun yahay laakiin waa iska ilaalinaysaa qofkaas waxyaabaha qaar suki keenayaan oo iska ilaalinaysaa kasoo qaadba meelaha kasoo qabaxtaan waasan salaantay sodohdii ama inan aho ama gabadh aho haddii soo salaanta kaa qaado waa salaamaysa dhaafi maysa qof wanaagsan weeye macnaha haddii aad iska dhaafto qof xun baadi ku qoraya laakiin haddii qof xunto salaantii waxay kaa diido kaa cagajido ma salaamaysa waa iska dhaafaysa diiniyan iyadoo nafaraysa inuu qofka la wanaajiyo laakiin inagu waxaan eegayna qofka dabeecaddiisa inuu eegin
way isku xumaanaysaa mar walba wax xun iga saameeyo kowli waxa ka imaanaysa waxba dhibsasho ka imaanaysa mawduuca maanta halkaas ku joojinaynaa fadlan mawduucyada ka soo la socoto YouTube nagala soco subscribe saar waad mahadsantihiin